buugga tacsida allaha u naxariistay maxamed aadan rooblexood ayaa maanta ka furmay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Nabadoonka oo ka mid ahaa saxiixayaashii maamulka Galmudug si weyn looga yaqaanay deegaanada Galmudug gaar ahaan kaalintii uu ku lahaa nabadeynta iyo ka shaqeynta xasiloonida deegaanada Galmudug oo dhawaan ku geeriyooday degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa maanta furitaanka buugga tacsidiisa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug maamulada Dhuusamareeb iyo Gurceel waxgaradka oo uu ka mid ahaa Ugaas Xasan Ugaas Maxamed Ugaas Nuur. gudoomiyaha degmada Gurceel Anas Cabdi Macalin oo furay buugga tacsida ayaa ka hadlay doorkii marxuum maxamed aadan rooblexood uu ku lahaa nabadeynta waxa uuna ka soo qayb galayaasha kulanka ka codsaday in loo duceeyo marxuumka. una duceyno adeerkeen nabadoon maxamed aadan rooblexood oo ahaa nabadoon Soomaaliyeed oo runtii aan la dhihi karin wuxuu ahaa nabadoon qoys laakiin nabadoon Soomaaliyeed ee ka baxay Soomaaliya oo dhan gaar ahaan reer Galmudug. waxaan leenahay nabadoonka Allah u naxariisto waxa kaliya oo maanta uu nooga baahan yahay waa duco. marka inaan u duceyno ayaa horta qodobka koobaad yahay oo inta bulshadu isku timaado iyo madax intaan la eeg iyo dhaqan in la yiraahdo oo Ilaahay loo baryo qodob ay ahayd. talabaad bacdama uu ahay shakhsi ku qaali ah deegaanka in la muujiyo hamaamuus loona muujiyo hab qaranna loo sameeyo intaas oo ka timid bulshadii deegaanka iyo madaxdii ayadana intii soo qabanqaabisay waa uga mahadcelinaynaa. sidoo kale qodobka aan isleeyahay aadna waa ugu muhiimsan yahay waxa weeyaan tacsida aan u tacsiyeynayno ehelkii iyo qaraabadii gaar ahaan qoyskii ilmo maxamed ay ugu horeeyaan. waxaan leenahay adeer samir iyo iimaan Allah in ka siiyo dhamaanteena Allah naga wada siiyo idinka kaliya in kama bixin Soomaaliya oo dhan oo ka wada baxay. waxaan leeyahay marka si gaar ah bacdama aad idinku qoyskii hoose ahaydeen Ilaahayna waxaan inii weydiinaynaa qalbi qabow iyo inaad samir yeelataan. waa maasantiin marka xildhibaan Mursal Maxamed Yuusuf Xeefow iyo xildhibaan Cibaado Shiino ayaa iyagana ka sheekeeyay taariikhda nabadoonka. waxaan ka wada shaqeynaa deegaamo wuxuu ahaa nin haddii maxay la isqabsado meesha dumada raali ku taa u badan yahay in uu aado ayaa marqatay wanahay. waxaan rabnaa oo kale nafteyda iyo nafta maqan iyo kuwa ifiirsanayaba inay cafiyaan Ilaahay dartiisa cafiyaan. waxaa laga yaabaa wuxuu run oo xaq moodayay inuu qof xaq darro u aragto. waxaa laga yaabaa waxaan dadku fahmayno isagoo fahmayay. waxaa laga yaabaa maxay wax asoo maslaxa u arkan dad maslaxa u arkin. bulshadu waxay ka taqaano iyo wax qabadkiisu wuxuu ahaa inta isugu timid ayaa marqaati ka ah iyo dadka maanta u jooga horay ayaa looga hadlay. Soomaalidu qof markay shaqo u dirsato qofna shaqadii loo dira ayuu dayacaa oo dhib ka yimaada qofna shaqadii loo dira ayuu shaqo kale ku darsadaa. nabadoonku wuxuu nabadoon u ahay reerka boorka ku qoran. bulshada hadda meesha joogta huna waxay marqaati ka tahay inuu nabadoon Soomaaliyeed oo dan Soomaaliyeed ka shaqeeyay inuu ku sifaysnay. qaar ka mid ah waxgaradka iyo Ugaas Xasan Ugaas Maxamed Ugaas Nuur ayaa si wada jir ah ugu duceeyay in alla qabriga u waasiciyo nabadoon maxamed aadan rooblexood oo maalmo ka hor ku geeriyooday degmada Tani Gurceel ee gobolka Galgaduud. uga shaqeynaysan nabad u fariisan ma aysan jirin. waxaan leeyahay maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hay wanaagii uu soo sameeyay ka amal mariyo. annaguna waa iska cafinaynaa waxaan leenahay cafiyo masaabax oo tolku jecel yahay waxa nin la jecel yahay nin kastaana meesha uu aadayaan wada socona. waxa maanta nooga furan waxa laga arkaa in Ilaahay weynaay oo rabbigii na abuurtay aan baryaynaa Ilaahay baryaha inuu naga ajiibo oo Ilaahay baryahan baryayno oo aqbalo maxamed aadan Allah u naxariisto. ugu dambeyn waxaa kulanka tacsida ka hadlay duqa caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda. waxa ahay oday Soomaaliyeed waxa ahay asaasayaalkii Galmudug oo saxiixayaalka kamid ahay. waxa ahaa nabadoonka beesha halkaan hadda ku qoran markii gaar ahaan si hoose loo fiiriyo. waxa ahaa nin nabadeed oo maslaxadda ka taliya. maxamed aadan
waa dadkii asaaska u ahaa dhismihii dowladda federaalka ama midda galmudug ilaa deegaanka Itoobiya in laga yaqaan u ahaa deegaankan galmudugna xubin muhiim ah ayaa ka baxday waxaan leenahay ilaahay waxaan ka barinaynaa badal khayr qaba annagana gadaashiisna ma fidneeyo